dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay go'aankii shalay ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaasi oo ahaa in doorashada la qaban doono isla markaasina waqti dambe aan la lumin doonin haddaba iyadoo ay maqan yihiin maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo wali xal aan laga gaarin khilaafaadkii kala dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya ee la xiriira arrimaha doorashooyinka sidee lagu qaban karaa doorasho haddaba qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka hadlaya horta doorashada inay waqtigeeda ku dhacdo waana go'aankaba ay dawladdu wadato qodobkaas isagu dib u dhac ma leh qodobka kale maamulada maqan iyo maamulada joogo shalay go'aanka gaaray horta waa kala badan yihiin shalay saddex maamul goboleed iyo gobolka Banaadir iyo dawladdii ayaa isla joogtay oo go'aanka soo saartay labada maamul goboleed oo maqanna markaa waxaan ku rajaynayaa inay ku soo biiraan iyo mucaaradku inay ku soo biiraan marka in hal meel la isla fadhiyo mujtamaca Soomaaliyeedna uu doorasho ka sugaayo dawladda ma suuragelayso dawladdu inay tallaabo hore u qaado waaye go'aanka ay shalay qaadayna aad bay ku saxan tahay waana ku taageersanahay in badan bay arintaasi u soo samirtay dalkana dawladda ka jirta arinta dawladdu ay shaacisay waan ku taageersanahay anigoo ah suldaankii nabadda Soomaaliyeed ee socdaalka nabadda ee la magac baxay deganaansho iyo nabad loo galay dadaal bay ku jirtaa danteenu ama ogaan dadkaygo waan ku qanacsanahay waana soo dhaweynayaa in badanna xukuumaddu way samirtay waanay u dul qaadatay waxa igu maqaala ah waxa wali war laga leeyahay Jubbaland iyo Puntland waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo aan ku hambalyeeynay dadaalkiisa nabadoonnimo bismillaah waa ku faraxsanahay go'aan shal xukuumadda ay gaartay waxaan jeclaan lahaa inta in ka badan in waqti la sii dhimin oo hor loo sii socdo doorashada sababtoo ah doorashada waqtigeeda hadda zaid oo soo dhowdahay in waqti kale aan la sii dhimin aan lagu beerdareen taas qabanay waxaan kula talinayaa xukuumadda madaxweyne Farmaajo hogaaminayo in talada lagu soo celiyo sideedii oo aan talada la dhinac marin dhammaan maamul goboleedyada iyo xubnaha musharaxiinta oo dhanba in meel la isugu yimaado la soo go'aamiyo wax heshiis lagu yahay oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku wada jirto marka labaad waxaan leeyahay Soomaaliya waa meel bayna dawladdu waa hal hadday la kala qaybiyana ma soconayso oo wax ka soconaya ma jirto laakiin haddii wax la wada qabsado way noqonaysaa waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed oo madaxweyne ugu horeeyo oo gobolladu ugu horeeyaan oo mucaaradku ugu horeeyo hal la isku tanaasulo dadka ha loo turo waxaan leeyahay qof waliba ha tanaasulo meel ha lagu wada qabto dawladduna hadday maanta dawlad ma soconayso dawladdu gooriyahoo gobolla ka maqan yihiin ma soconayso lama oga halka uu saldhigan doono muranka ka taagan doorashooyinka la filayo in ay dalka ka qabsoomaan balse xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay ku adkeysanaysaa in ay qaban doonto doorasho loo dhan yahay isla markaasina la qancin doono mucaaradka ka soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya xasan kaafi xaaji maxamed Shabeelle TV magaalada Muqdisho ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking